السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقالقة كسو دوادا جنال كينا حمو فيشيال مالي وناكسن هبين وناكسن انت قفل بوح بي اوتاي كسو دوادا مالين عصب يوجع عصب برنامج عصب. أصحابتي قروح دا بدن لي marka asxaabteeda soo dhawaada channelkayga haduu kugu cusub yaa subscribe dhe kambalelka furo asxaabtaada kala sii share garay si ay barnaamijyada ula socdaan maxay aheeto asxaabtaada kala sii share garay commentigana waa ii dhiirigelin waayo waa dhiirigelin ay barateen maanta waxaa idin wadaa la talin oo wiil walaalkeen ah noo soo dhiibtay asxaabteeda qaaliga la talinta aad bay u wanaagsan tahay inaa qofka walaalka ah la taliso ama aad dhibaatada la soo gudboonaata ah qayb weyn kala qaadato. asxaabteeda qaaliga soo dhawaada qodobkeena baa hore sii galaya waa ka ina la socda marka qodobkeena waxa waaye wiil walaalkay baa ii soo dhiibtay oo yiri dhibaato baa haysato dhib baa haysto waa qofka bini'aadamka oo dhib la soo gudboonaadan in badan inuu dadkiisa oo la wadaago aad bay u qurux badan tahay. marka asxaabteeda qaaliga wiilku wuxuu dhahay in hooyaday baa ani kaligay bay dhashay hooyaday markay kaligay dhashay aabahay anigoo yar uu dhintay markuu geeriyooday hooyaday nin bay guursatay adeersa u taqaaniin adeerkay marka wuxuu yiri in badan caqabooyin ama dhibaatooyin horta isfahanku way dhib badan tahay marka aniga waan yaraayo yiri marka hooyaday ay adeerkay guursanaysay markay guursatay booskii aabahay inuu buuxsho meeshii laga rabay buu wuxuu mar walba oo igu sameeyaa yiri wiilka wuu riixaa hooyaday markuu guursaday in badan isla joogeen awlaad bay isku dhaleen mar walba oo guriga uu soo galo ilmihiisa bas loo xawsana aniga uu riix jiro yiri madax buu igu kubinaa si xun oo ila dhaqma mar walba iska ooy jiro yiri hooyadayna mu dacwoon kariyo waayo hooyaday way nolosheedii way ku faraxsan tahay anigana caqaba ay haysato markii meela ilma loo wada la dhaho aniga dhan walba dhinac boo ii riixaa yiri mi irabiyo markasto on la xawsado aaba aan dhaho si ilxun buu igu dayaa walaa marka asxaabteedii aad bay u xanuun badan tahay waa arrin xun waayo adeero xun way jiraan adeero wanaagsanna way jiraan aabayaasha ka boqorsan marka waxaa laga yaabaa wiilkan walaalkeen inuu ku soo aado halka adeero adduunka ugu xumaan marka wuxuu fiirinaa wuu ku weynaada meeshii hadduu ku weynaaday marka wuxuu yiri heer waxaan gaaro yiri waxbarasho ah aniga wuxuu geynaa yiri iskuulaadka oo lacag la'aanta ah ilmihii kalena wuxuu geynaa halda iskuulka oo lacagta oo ilmaha madaxda ay dhigtaan wiilkii cuqdad baa gashay war cunuga dhal ama ha dhalin cuqdad ha gelin oolaada cuqdada day ku beerato waa shay aad u xanuun badan asxaabteeda marka wiilku wuxuu yiri dhibaato badan aan ku jiray aabanimo aan iga oo aqoonsanay ama aan ku qadarin jiro mar walba waan jeclaay maxay ahayd aabahay lixwiisa maanan arkin laakiin asiga la xawsa jiray asiga ma ila xawsa jirin mani irabin mana idanay jiray mani idaryeeli jirin marka sidaas aweed wiilkii iskuulkii lacag la'aanta buugeey wuu ku niyajibinay laakiin adduunku waxa la dhahaa qofkii la riixo baa u fiican adduunku qofkii la riixo ama qofkii in la xumeeyo isku day aaba u wanaagsan buu adduunkana malab ku noqoto markii aabi ilmihii kale wuxuu geeyay iskuulkii lacagta ahay ilmaha madaxda dhiganayeen baabuurka lagu qaadaa cunuganeeti waa la diraa subax morningi duurkiisu ka baxa wax lacag ma isiinayo yiri wax waxbarasho ma iga bixinayo yiri hooyaday ma arkayso yiri waayo asiga u jeedaa ima rabto yiri marka waxa adduunka ugu xun dadka oo ilmaha ko intay dhalaan nin kala guursadaan cunugaaga waa la sheekaystaa waqtiga laga qaataa dhibaatada haysato waa la fiiriyaa waa la macnaa waqti badan la siiyaa babyga waayo qofka markay cuqdad ku weynaato aad bay u xanuun badan tahay marka wuxuu yiri mar walba uu riixi jiray uu dili jiray waxyaabo waxayna ugu dila hooyada waxay dhawriyaa istaxiyeelo adeerka waaye istaxiyeelo adeerka waa shumi biyuge wuxuu sameey waa taqaani naag haday nin kala gadaal ka guursato caqabooyinka laga maraayo awlaada marka ma fiican cunugaaga ha u niyajibin macnaa qof oonan rabin ama oonan inaan rabaasho aad u jeedo cunugaaga waa fahmi kartaa markuu ninkan uu ku qabo oo cunugaaga uu rabin iyo markuu uu rabo waa kala dareemi kartaa marka sida haday ahayd cunugii wuxuu yiri muddo aabihii wuu dhibi jiray yiri si walba ila dhaqmi jiray si xun oo ii gali jiray ilmihi iskuulka lacagta iyo adduunka oo ka bixin jiray waxba imtixaanku way ku soo dhacayaan imtixaan wax adduunka waxa la qofka la riixa ama meel xun la geeyo baa meel wanaagsan aakhirka wixii dhici doona fiirsada marka wiilka sida soo waay oo ciqubo oo ku soo koray rifaad oo ku soo koray sida asoo adeerkii adduunka ugu jeclaa
aaba macaan inta dhow dhulka jira asagana uu iska riixi jira markuu habartu jeedin wuxuu dhahaa wariyaa istaxiyeelo waa iska faquuqaa cunug sidaa day ahayd wiilkii moonan usii fiirin wuu iska sabray wuu iska ooyi jiray wuu iska calool xumaa jiray wallaahi qisadaas dii laga sheekay aad baa u calool xumaaday marka wiilkii sidaa dawa ahay wuxuu yidhi ani xumaanta ugu samaynayo ma fiirinayo waxaan fiiriyo yidhi aniga hooyaday sida hooyaday ugu xanaaneynaa iyo ilmaha oo hooyaday dhashay muu fiiri jirin oo yidhi marka wiilka hadduu ku weynaado meeshii uu ku aqliyeystay waxbarashadii birima uu ka galaa iskoolkii dhan kaalinta koowaad kuwii kale oo adduun oo ka dhigayo niman gabdhihii wiilal ay ahaayeene madax ay ka dhigaayo hoos way ku dhacaan imtixaanka way ku dhacaan qof oo macallimiinta duu u taga si walba u yeelo waxaa la dhahaa ilmaha waa damiyaal waxa ay qabsaayaan ma jirto iskuulkeena ha laga baxsho wiilka wuxuu yidhi aniga waan u calool xumaanayo yidhi markii ilmaha ay dhacaan bal fiiriya wanaagiisa u fiican yahay waa cunugaa faquuqaysa xumaan aa ku abuuraysa bal ka war hadduu jaceyl ku siiyo oo ku jecel yahay walaalihiisa u jecel yahay oona necbeen oo si walba sameeya ma u fiiri jirin oo yidhi waayo waxaa isdhoo yidhi berri maanta haddii ay ku faquuqeen berri baa meel ka soo bixi doontaa u dulqaado dhibkiisa u dulqaatay oo iskuulkii uu ku dhigtay fasal walba imtixaankiisa hadduu gala kaalinta koowaad hadduuna gelin kaalinta labaad kaalinta saddexaad ma dhaafi jirin kuwii kale oo laga dhigay kuwa heerka adduunka ugu sarreeyana maxay ahaayeen eber low waxba ma haayaan waayo iskoolka way ku dhacaan waxaa laga beediyey mayaca lacagaa la siinaa wax bay cunaayaan murug iyo fikir mahayan laakiin waxaa la dhahaa qofkii aqoonta baahi iyo kusoo bartaa la dhahay maxay ahayd too ciil horumar uu ka gaarayaa wiilkii sidaas ay wahayd ilmihii ayagoo sidoodii meeshoodii u fadhiyaan ee hooyadood ay dhees maxaa dhacay adeerkii oo niyadda uu ka dhahayo waa ku haysato wax ku haysta ma ogi waxaa arkoo yidhi adeerkii oo iisoo dhadhawaanaya anigana laba gooraba waalidkeygu ah waayo hooyaday iyo walaalahay buu ii kaamkaami jiro yidhi aniga faquuqaay mar walba waxaa fiiri jiro yidhi ilmi walaalahay waxa uu u qabanayo bal wanaaggaas fiiriya wanaaggaas dhedheelmiya waa maya waayo maanta dad waxaa jiraan ku fikiraan marka uu adeerkan ku faquuqo oo hooyadii adeerka isku diraayaan maya asiga isku diri jirin markii dambe oo fikir iyo murug iyo walwala intaa gashay wiilkii oo calool xumaaday wuxuu uu sameeyey uu gara waayey markaas wuxuu isdhahayay maxaa samaysaa maxaa qabataa intay ka baxdaa waayo waalidkii saanu caqabad kugu yahay aabihii waa ku weynaada wiilkuu ku weynaaday xanuunkii iyo dhibaatadii waayo qofka markii saas loo ciilkaaminayo qalbiguu ka dhimanaa haddaa niyadda ka dhimatana way kuu dhammaatay waayo niyadda haddaa ka dhimato wax adduunka ugu xun ma jirto wiilkii sidaas oo u ahay oo u fikirsanaay oo u murugsanaay bo maalin maalmaha ka mid ah oo go-aanka wuxuu yidhi maxaan sameeyaa marka asxaabteydii maxaa kula tali laheedeen wiilkii go-aan uu qaatay muxuu go-aan ku qaatay inuu guriga ka tago no guriga ha ka tegin waayo intaas baa usoo sabartay intaasa usoo dulqaadatay adeerku madax kaa kubinaayo si xun kuula dhaqmaayo hooyada iyo wanaag ay kugu muujinayso ku dhahayso waryaa aabbaha saan u samey oo ay ku dhahayso baa adigana wax walbo ay haye u dhahayso maanta waxbarashadii ku dhammaysatay inaa meel cad waalidkaaga uga tagto ma wanaagsana waayo si doonto ay noqoto ku soco wanaagii shalay aa ku socotay wadadii fiicneed aa ku socotay maantana ku soco waa in waxaan kula tali lahaa inuu la joogo oo galgacal siiyo waayo waxaa laga yaabaa biri inuu jeclaado waayo maanta naceeb uu iska aaminsiiyo Soomaali inuu ismicsiyo go-aan ku gaaray maya hadduu ku nacay adee jeceyl u muuji maasha allah waayo waxaa lagu dhahaa qofkii ku naco jeceyl u muuji way ku jeclaaneen qofkii ku caayana wanaag u muuji maasha allah tabaaraka allah waa nabigeena maxamed alayhi salaatu salaam wuxuu ka dardaarmay marka aan wiilkan walaalkay waxaan kula tali lahaa adeerka hadduu ku xumeeyey booska aabbaa buu taagan yahay wax walba uu ku xumeeyey wanaaga oo hooyada iyo u sameynaya shalay sooma fiirin haa maantana sida usii fiiriyo ku sabar oo niyadaada degso oo maanta waxaa laga yaabaa cidda sitina adig ka soo baxda oo horumar aad gaarto waayo qofka la ciil kaamiyo ama la faquuqo ama dhinac loo riixo ay dadka ay dhan ugu saftaan baa biri meel iska soo saaraya waayo biri qofta markasta la garab qabanaayo waxba ma aha laakiin qofka markay iyada isoo saarto yes maanta waa isoo saartay guusheeda waa gaaraysaa ha fikirin ha walwalin ha calool xumaanin marka aan wiilkaas walaalkeen waxaa kula tali lahay in uu u sabro u dulqaato adeerkiisa caqabada oo kusii wado biri inuu ku jeclaada laga yaabo biri oo ilmaas oo soo dhaweysanayo ama laxawga oo siinayo inaad adiga uga fiicnaato markuu biri heer xanuun oo gaaro adi aad sidaa u xambaarto
marka waxaan dhihi lahaa walaalkeyga qaaliga ah sabar u dulqaado oo sabarka badi waayo qofka bini'aadanka qof xun iyo qof wanaagsan buu isku jirtaa jaceelka iyo wanaagga oo walaalaha siinayo fiiriyan kula talaa asxaabteeda qaaliga la talintana waa xaqiina haddaa aad ka hesha asxaabteeda qaaliga ah subscribe dheh haddaad ku caajistana ka raali noqo asxaabtaada kale u share garay si ay barnaamijyadeeda ula socdaan marka asxaabteeda qaaliga waxaan idin leeyahay dhan walba ee naqato waan jeclahay inaan meel walba farxad idinla qaato waqti wacan aan idinla qaato ay barnaamijna idinla wadaago marka asxaabteeda qaaliga waxaan idin leeyahay anigoo kiin axmed sidaa iyo nabaadiino janalkiina waa janalkeena